dunida oo dhami dareen diidma ah ayay ka muujinayaan duulaan weerarka Ruushka ee uu ku ekeeyay dalka ay jaarka yihiin ee Ukraine. NATO is not simply a geographic alliance. It's a group of countries who stand together because we believe in democracy and the rule of law, values that underpin all of our societies. Tan iyo dagaalkaas Putin cannot win this war. This is very important to the security. wax badan ayaa iska bedelay xaaladda gobolka dhinacyada siyaasadda iyo ammaanka iyadoo xeerarkii diblomaasiyadda ay u muuqdaan in mudnaanta haatan ay ka qaadanayaan difaaca iyo deganaanshiyaha amniga gudaha badqabka bulshooyinka caalamka dawlad walbaaba mudnaanta koobaad ayay u tahay marka la fiiriyo xasarada colaadeed ee hadda soo ifbaxdayna dareenka kalsooni ayaa ah mid aad u hooseeya sidaas awgeed ayay wax badan isu bedeleen. The people of Ukraine are fighting for their freedom and for their future. We stand with them. Putin is getting exactly the opposite what he intended to have as a consequence of going into Ukraine. NATO has never been more united than it is today. Finland iyo Sweden dareen cabsi ayay tan iyo duulaan weerarka dalka ay xulafada ahaayeen ee Ukraine markii lagu qaaday waxa la soo darastay xaalad cabsi ah badqabkooda ayaa halis ku jira nagaanshiyahooda ayaa dareen wehliya ku sii tiirsanaanta cudud muhiima oo amniga xaggeeda doonisteeda ayaa lama huraan ka noqotay xaggooda taas ayaa soo dadejisay in dareenka dadyowga dalalkaani uu noqdo deyr adag danayn difaac iyo ku biiritaanka isbahaysiga weyn ee waqooyiga Atlantika ee NATO la yiraahdo. sida muuqata dib u eegis ayaa lagu samaynayaa siyaasadda dalka Sweden waxaana muuqata in ku biirista isbahaysiga NATO ay yarayn doonto khatarta iska horimaadka labada dal ee Finland iyo Sweden waxay ku dhow yihiin inay go'aano gaaraan inay ka tanaasulaan siyaasad la'aan ciidan oo ay muddada dheer ku jireen ayaa ah hadda inay xalka kaliya ee taasi iyo baahida looga kaaftoomi karayba ay tahay helitaanka xubinnimada NATO kadib duulaankii Ruushka ee Ukraine baraarug bulsho ayuu dalalka kani u horseeday sidaas awgeed ma jirto waqti dheer oo ay qaadan karto in go'aano ay dibnahooda ka soo baxaan. xubinnimada Swedishka ee NATO waxay yeelan doontaa saameyn deganaansho waxayna faa'iido u yeelan doontaa wadamada ku hareeraysan badda Baltic. wasiirka amuraha dibadda ee dalkaas ayaa sheegtay in dalka ay dariska yihiin ee Finland markii ay go'aansadeen inay codsato ku biirista 30 wadan ee isbahaysiga NATO inay xubin ka noqoto sidaas awgeed iyaguna ma moogana muhiimadda ay u leedahay qaadashada mowqifka kani. xubinnimada Sweden ee NATO waxay kor u qaadi doontaa heerka isku dhacyada military waxa ay saameyn ka hortag ah ku yeelan doontaa waqooyiga Yurub. wasiiradda ayaa sidaas u sheegtay suxufiyiinta mar ay soo bandhigaysay warbixinta amniga ee baarlamaanka. Sweden ayaa si weyn loo filayaa inay raacdo hoggaanka Finland aragtidooda waxaana maamulka Sweden laga yaabaa inay dabcan isniinta horeba ay codsadaan xubinnimada NATO. Moscow mar walba dibnahooda hadallo dareen colaadeed ka muuqda ayaa ka soo baxaya. Putin waa uu handaday dalalkani waxaana muuqata in handadaadiisu ay noqon doonto wax kasta oo maangal ah oo lagu carqaladayn karo qorshaha dalalkani ay hormuudka u yihiin.